ku soo dhawaada qaybta labaad sheekada 330 nin ee uu god ku dumay dalka Chile. qaybtii hore waxay noo joogtay in macdan qodayaashii uu god ku dumay dalka Chile sanadkii 2010 kolkay halkaas ku jireen 2 usbuuc in midkiiba uu ka dhacay celilisaan culays dhan 20 kilogram qaarkoodna socod ku dhibayay qaar kalena maqaarku lafta ku dhagay halka qaarkoodna ay god ka qaadeen xanuuno kala duwan. haddaba maalinkii 16aad ee godkaasi ku jireen noloshii ayaa ku sii adkaatay waxayna gaadheen heer xabad tufaax ah inta laba loo kala jeexay oo jeex meel la dhigay jeexi kalena nin walba la siiyay wax yar oo cidida leeg. intaas kadib midkood ayaa soo jeediyay in midka ugu horeeya ee dhintay hilibkiisa la cuno si ay inta kale u sii noolaan karaan. mid kale ayaa soo jeediyay oo yiri waa inaynu ninka reer Bolivia qalanno oo aan hilibkiisa cunno si intaynu isku wadanka ayaan u badbaadno. oday ayaa soo jeediyay oo yiri armay fiican tahay in ninka reer Bolivia uu noqdo qofka inoogu dambeeya ee dhinta si haddii uu nolol dibadda uga baxo loo yiraahdo reer Chile waa dad wanaagsan oo martida darteed u dhiman kara. labadaas fikradoodba waa loo guuxay lama saqaadanin oo tusaale ahaan waa iyadoo 330 nin 230 nin oo ka mid ah ay yihiin Soomaali ka 330 uu yahay qoomiyad kale oo ay cunaan midkaas taasi oo guul u ah Soomaalida raggooduna ugu badbaadayaan. haddiise ninka reer Bolivia la xanaaneeyo oo noqdo kan ugu dambeeya ee noolaada waa guul weyn iyo magac u soo hiyanaya reer Chile. waxaan loo diiwaan gelinayaa dad martida soo dhaweeya oo karaameeya. dhowr iyo 10 mishiinada loo adeegsado daloolinta dhagaxaanta waaweyn ayaa ku jabay halkaas. qalabkii adduunka ugu xooga badnaa ee wax lagu daloolin karayay ayaa la isugu keenay. dawladaha adduunka ugu waaweyn ayayna mid waliba dhankeeda ka gashay hawsha badbaadinta raggaas. 1 bilyan oo qof ayaa maalin walba la socday xaaladaas iyo wararkaas. 3,000 oo jariiradood iyo idaacado ayaa ku mashquulay. milyuumaad lacag ahna waa lagu bixiyay howlgalka badbaadinta raggaas uu god ku dumay ee dalka Chile sanadkii 2010. Anani Yesef ayaa hareeyay golayaasha dalka Chile. madaxweynihii dalka ee xilligaasi ayaa ku khalkhalay arrintan waxaana ku sigtay inuu xilkiisa waayo haddii uu raggaasi ku kuldareysto badbaadintooda. madaxweynihii wuxuu ku qasbanaaday inuu tandho ka dhisto buurta agteeda si uu maalin kasta ula socdo howlgalkaas. dhammaan wasiiradii iyo xildhibaanadii ayaa qaadhaan iyo qayladhaan waqtigooda oo idil geliyay iyagoo ka cabsi qaba in ay dawladda idil iscasisho haddii ay 330 nin ku dhintaan godkaas. bal xaaladda barbar dhig boqolaalka Soomaalida ah ee sida maalinlaha ugu dhimanaya qaraxyada colaadaha iyo gaajada ee ay madaxdeena kuwa ugu fiican yiraahdaan Allah u naxariisto. 17 maalin kadib ay raggaas dushooda ka arkeen iftiin yar oo la soo dalooliyay waxaana dib ugu soo laabatay rajo ah in ay noolaan karaan. daloolkaasi yar ma ahayn mid ay ka bixi karaan waxaase loogu soo daadinayay cunno iyo dawooyin. 69 maalmood ay raggaasi ku jireen godkaas waxaana loo diiwaan geliyay xilligii ugu dheeraa ee ay dad uu god ku dumi ku jiraan waqti intaas la eg. 69kaas maalin dhammaan dawladda Chile madaxweynaha iyo xukuumaddiisiiba waxay shaqadoodii ka dhigeen godkaas inay kor joogaan qaaraan ururin qayladhaan beesha caalamka iyo inay qanciyaan qoysaska 330 nin. kolkii ay god ka soo bixeen 330 nin hal nin ay ka dhigteen afayeen oo u hadla intooda kalena waxay isku afkarteen inayna hadal weliba waxyaabihii sumcad xumada ahaa ee godka dhexdiisa ka dhacay inayna weligood soo hadal qaadin ay isla qaateen. waana sababta ilaa hadda loogu yeedho geesiyadii reer Chile. waa sababta sheekadoodii loogu qoray buugaagta dunida ugu caansan halkii buug ee sheekadooda ku qoranna ay ka qaataan balaayiin lacag ah. waana sababta shirkadda filimada ee Hollywood ay uga samaysay sheekadooda filimkii 330 nin The 33 Men oo ay ka qaateen lacag fara badan. inkasta oo filimkaasi uu buuq badan dhaliyay maxaa yeelay cidina ma helin sheekadii god ka dhex dhacday oo sax ah waayo nimankaasi waxay qariyeen waxyaabihii xumaa ee godka dhexdiisa ka dhacay oo idil. waxaa intaasi ku dhan sheekada 330 macdan qode ee uu god ku dumay dalka Chile sanadii 2010. 32 ka mid ahay waxay u dhasheen dalka Chile. ninka 330aadna waxa uu dhashay dalka Bolivia. godkani waxay ku jireen 69 maalmood. commenting nagu wadaag waxyaabaha kaaga baxay qisadan.